السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة iyo barnaamijkeeni tala dhakhtar oo aynu kaga hadli doono cuntooyinka jirka ka difaaci kara xanuunka coronavirus. Sidaan wada ogsoonahay waxa dunidii ku dhacay xanuun si baahsan u saameeyay oo la yiraahdo coronavirus. Xanuunkaas oo ilaa hadda aan lahayn dawadiisii iyo ama talaalkiisii. Sidaa darteed waxaa jira daraasado badan oo laga sameeyay isticmaalka cuntooyinka qaar kuwaas oo kordhiya difaaca jirka lana dagaalama xanuunka coronavirus. Corona waa caabuq virus oo ka faa'iideysta difaac yarida jirka bini'aadamka sida hargabka oo kale. Fadlan ku dadaal waxyaabaha difaaca sare u qaadi kara sida cuntooyinka ay ka mid yihiin liinta noocyadeeda kala duwan, toonta, sanjabiilka, filfisha, basbaaska, huruudda, maraqa, malabka iyo xabad sawdada. Bulshooyinka waxyaabahaasi aysan cuntadoodu ka maqnayn halista corona way ku yaraan doontaa sida la saadaalinayo. Jidhkooduna waxau iska difaaci doonaa fayraska. Dalka Hindiya aad bay u cunaan cuntooyinkan ama aad ayay u isticmaalaan ilaa iyo haddana lagama soo sheegin qof caafimaad qaba oo u dhintay ama cisbitaal loo dhigay cudurkan. Waana waddanka labaad ee dunida ugu tirada badan. Shiinahana xiriir leh dadkooduna aad u safraan. Sidaa darteed isticmaalka cuntooyinkani waxay xoojinayaan awooddaada difaac ee jirka, taasoo iyaduna kaa caawinaysa in xanuunkii aanu jirkaaga soo galin. Haddii uu soo galo oo xanuunkeed qaadana waxaad awood yeelanaysaa inaanu saameyn weyn kugu yeelan xanuunkan oo aad iska difaacdo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin lana wadaaga asxaabta.